daawade xalqadii hore ee barnaamijka qalaabso lacag waxay noogu joogtay الله بريان كذي تلا والله فلاني ده فلاني هذا عيب سلاح يا ون سوق بس سرقه بدش توك توك نقدر تني صدق ما يقعد تمارين حسن صدق الله بالك وش أفر shaqada ay qabanayaan ayaa ah inay dhaliyaan 10 gool ay ka dhalinayaan goolwada aysan cidna ka difaacin si lamada iyaga ayaa mar kale hadana noqonaya goolwada aysan cidna ka difaacin waxayna qabanayaan 10 gool توك مينو قرشي رتين ويلي لكن رتين ويلي توك مينو قرشيني صدق ما يقعد تمارين حسن صدق الله بالك وش أفر سمع ليه اوتوماتيك توك والله قالت وقت ما نوع دوار ما تدري شنو حاجه يا سكر تدري ولا ابو سيده الله بلاك وش خبر واسع شو صار وين تلح بين ما حتى قرأ وقت قصعه ده عبد الله لا ده أنا كوسو قال جميل لو تدبط محمود طبعا والله مجننين أنا هيا طبعا كمان اسمع من هيك كمان نكها بدك هاش اللي شوف شنو دوكار لي ها انت وزير من اسكيليا الله بدك الدورة والله قاعد هاي قلوتي عسنا ما يدورسين ممكن كديش tii sheekh madar goobta ay ku soo dhow yihiin kuwaasoo hadda maraya jidka ka soo dhaadhaca xaafadda jigjiga yar ama ka yimaada masjidka daarul iimaan taasoo wax yar u jeeta goobta uu yaalo kuluga ama sidoo kale kuluga kama dambaysta kulanka maanta weli tim calaamadda waxay ku jiraan halgankooda ay ku doonayaan inay ku hantaan kuluga kama dambaysta kulanka maanta يرضى هم صاحبهم كلهم يعني سوي عارفة لأنك تتولد سوق قاعد والصعانة صار وقصو عرضة بس هذا هو بني أنت مك سوق قاعد هتجي عطل شوف أنت سوق قاعد عطل وعي شدك طبعا إنك كن استدني كنا لو قاعد عطل صح تاخذ اليوم تطبق كده تطبق ده عمرك الله ما درع استونا هنا توي ولا يكون عليه توي
مارك سواري لح تضام حد ستيت لح نيو لح ممكن يقول لي مارك شم أريا شم ما كان قبل ما لحظة حتى لح ده tiim sheekh madar goobta ay soo gaadhay waxayna shaqadooda bilowdeen hadda حسن أو مارك صح لح مارك سواري شم مارك حسن أو أفر صار عادي أنا يجي وين قلت مريم أنا قلت ما مقصنا هيدا أفصح وتدوي صار مرلون كمان خواض على هذا أيوة هاي خيامي يا ها صدق صعب عليه شن أنا ولا دماغ شن يقول كده كده وعفر tiim sheekh madar iyaguna shaqada dhinacooda ayay ka wadaan haddaba halkan yaa ka warbixi doona ma tiim sheekh madar mise tiim calaamadaha midhaan cunay todobadii la isku qaaday xasanay dabkariis sida ya سعود قال لنا في قبرنا قبرنا سعنا سعنا ويا ساعة اوكي هذا ها شن مت عرفت كمان في ترمي ان شاء الله كلام معنا هي ستريس كانوا كلني ما هيا لح دي فهمت شرعوني كلهم كبروا كلامي أرجع شرعوني تاني tiim calaamadaha hadda waxay doonayeen inay goobta ka baxaan kuwaasoo hadda dhammaystiray shaqadoodii يكون قوقوتي اللي كان صدري نورني وروح حصل عر goobta weli waxaa ku jira tiim sheekh madar يا تفضل والله تبين شيء منكم هنا والله ما تبني سويسي انا صدع مستحوذ انا ما شاء صدح سديدي سراعي سعر الله مبارك عبده عيب لا عصبية بدل عن خل حق بطلان اسمعني سقاط وعادي اسكت يا حافظيسا tiim calaamadaha waxay ka soo daadegayaan jidka ka soo dhaadhaca wadada ka timaada xaafadda jigjigeer ee ku soo dhaadhaca jidka halbalow caasimadda hargeysa ee row number 1
waxaan dareemay dharkii xaysiinay la qaraabsan tiim sheekh madar waxay ka soo baxeen goobta waxayna ku soo jeedaan goobtii lagu laabanay ama goobta laga soo diray oo ah kow group oo kow tv halkaas oo ah halka barnaamijka ama sidoo kale kulanka maanta uu ku dhammaan doono والله ما سودو dibadda haday ku celiyaan madwaanad hadii la gaarsiyo anad dib u celinay waxaan والله وانا صوبحين ruwan ku horgaanay shida kaskan xigtaana ku kun ibrahim warsana فوق ابو الرين عرفت قلي على ديريني مركو هرم حكلي maxaa dheeraysaa intiin baalka dul هذا ودنيو intay rag dul fadhiyeen walaa ta dul fadhinay tageen be والله قاعدنا ما كرده بلايستيشن kamid ah saaxiibin intii wiil kaar saaxiib ciyaar ari saaxiibada mar raba saaxiibanu bariga oran bilaa camal sana ku sheegay waxaan waa iska wada ciyaar jiray laakiin baasisku waa maalinkii koowaad taabto kama dam maalintii hore tahay basla joogna naga joog الله والله ما سدو بس عاون ويسينو كنا انت صح وعادي انت وسي على يستاجي وجهتي هذا كان صاريو دولة مرعى فعل وكم با متوس نور نصار tiim sheekh madar bas ayay doonayaan inay qabsadaan bal inay suura gashanayna hubi suura gashay inay bas ka raacaan tiim sheekh madar dhigooda tiim calaamadaha weli lug ayay ku jiraan tiim calaamadaha weli lug ayay ku jiraan kuwaasoo doonaya inay ku gaadhaan kow tv ama kow group oo halka maanta uu ku soo idlaan doono kulanka maanta ama sidoo kale halka dib loogu soo dhaamanayo haddaba yaa horgaari doona waxay noqon doonaan tiim sheekh madar mise tiim calaamadaha ضغيلة عروس يسعى على أطلع عارفة فايف جديد اللي tiim sheekh madar basay soo raaceen waxayna kaga degeen jidka hormara wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ama wadada halbowlaha oo caasimadda somalilan hargeysa ee road number 1 halka weli tiim calaamaduhu uu isna ku jiro socodkiisa lugta labada kooxood ee tiim calaamadaha iyo sheekh madar wax yar ay isku jiraan socodkooda lugta ayay isku soo gaadheen waxayna hadda marayaan wadada ka soo leexata jidka koowaad ama dhahday jidka halbowlaha caasimadda hargeysa ee hormarta ama wasaaradda qorsheynta ama sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha عرفت وحده
lugtooda socodka waxaa hogaaminaya amaba horeeya tiim Sheekh Madar halka tiim calaamadahaasna uu ku soo xigo اسكيب labada kooxood ee Sheekh Madar iyo calaamadaha bas ay wada qabsadeen kuwaasoo wada raacay baska balse waxay ka tageen sawirqaadii duubay نور نيو نور صعد نور يا balse meel ka durugsan halkii lagu soo laabanayay koow group oo TV kaga degan baska labada kooxood ee Sheekh Madar iyo sidoo kale calaamadaha lugta socodka ay ku wada jiraan talaabo dheer ay wada qaadayaan hadaba yaa gaari doona goobta خير شيء أنا هوري guntii iyo gabagabadii tartankeena bisha barakaysan ee Ramadaan ee qaraabsan lacag oo hel lacag dhan 10 milyan oo shilinka Soomaaliland tartanka qaraabsan lacag waxa maanta ka qayb galay degmooyinka kala ah maxamuud haybe iyo soo kala degmada gacan libaax tartankani oo ahaa mid aad u adag isla mar ahaantaasina ay dhalinyartu wajaheen caqabadooyin iyo meelo kala duwan oo ay ka baadi goobayeen hal xidhaalaha ayaa waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo natiijadii waxaana inoogu dhawaaqi doonaa Cabdi Fataax sida aynu wada jeegno waxa taagan hadda tartamayaashii oo soo qabtay ama hal xidhaalayaashii soo helay waxa ayna ku dhawaaqi doonaa oo ah barta ugu xiisaha badan leh ee aanu soconay tartankeena ay ahayd ujeedadiisu waxaanu sheegi doonaa hadda guuleystihii ma wuxuu noqon doonaa tiimkan oo ka socday maxamuud haybe mise wuxuu noqon doonaa tiimkan oo ka socday gacan libaax waxa aynu hadda eegi doonaa natiijadiisii oo aynu ku dhawaaqi doonaa waxa ku guuleystay degmada maxamuud haybe daawadayaal labada tiim ee tartanka qaraabsan lacag ka qayb qaadanayay waxay labadooduba muujiyeen dadaal iyo juhdi aad u ballaaran waxayna u dhabaradaydeen cadceedda iyo waliba caqabad kasta oo ka hor timaada guusha iyo guuldaraduba waa mid ay sugayaan isla mar ahaantaasina ay naawilayeen waxayna muujiyeen dulqaad deganaasho iyo karti iyo dadaal aad u fara badan
daawade adigaagana daawanaya qayb ayaad ka tahay barnaamijka tartanka ee bisha barakaysan ee Ramadaan ee qaraabsa lacaga waxaanad nagu caawin doontaan oo nagala xiriiri doontaan Cow TV iyo waliba qaybaha kala duwan aan ku leenahay baraha bulshada sida social media ha go'an Instagram-ka iyo Facebook-ka iyo YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok-ta oo nagala socon kartaan waxaan ka dawageynayaa oo kale guul dareystayaashii ama inamadii guusha ka haray waxa aanu rajaynaynaa oo aanu siin doonaa gifts ay ugu tala gashay Cow TV taas oo aan ugu tala galay si ay u niyad jabin tartanka qaybaha dambena ay uga qayb qaataan waxaanu sii lama fursad labaad oo ah in marka dambe wareegyada dambe intii guul dareysata aan u sameyn doono spin ama aan u wareejin doono maxaa la dhahaa aan u sameyn doono qorituur kaas oo mid kamid ah oo ku soo bixi doono guul dareystayaashii una soo gudbi doono wareegyada dambe waxaan hadda siin doonaa inamadan oo ka socday gacan libaax ee kaaduyadii ugu tala gashay Cow TV hadda waxaynu la taaganahay inamadii guuleystay waxaynu weydiin doonaa bal dareenkooda iyo sida ay guushan ay gaadheen ay u arkaan idinkoo ku bilaabaya magaciina ka waran guusha aad gaadheen maanta dareenkiisu siduu yahay wallahi horta dareenkaygu mid la koobayo ma aha magacaygu oo Guulad Khaliif Cabdi iyo saaxiibkay Cabdalle oo ayaan naga qabanay guul wacan wallahi iyo rajo wacan lahayn si fiican baan u gaarnay guushan doonanay dadaalna waan dadaalnay ilaahayna intiisii uu nooga daray alxamdulillaah rabbil caalamiin ka waran degmooyinkii aad ka soo jeedaan ama aad ka timaadeen maxaad kula talinaysaan degmadaayada Maxamuud Haybe waliba xaafadan ka socona calaamada waxaan kula tagnay taageero fiican siina taageero fara badan ka helno si aan dhiirigelin u helno kooxaha kale loo jebin karno insha Allah ka waran maxaad rajaynaysaan oo tartanka qaybaha dambe aad ka rajaynaysaan kulay tartanka waxaan soo galnay waa guushaana waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsaha badan ama sida ugu fiican ee guul loo gaari karayaan u gaarno sidii maanta baan shaqada u kala qaybsanay aan sidii u kala qaybsano shaqadeeda noo wadano insha Allah tiimka ka socda degmada gacan libaax ee caasimadda Hargeysa ayaan iyaguna waxaan wax ka weydiinaynaa dareenkooda ku aadan iyo waxyaabihii ay ka filayeen ee tartanka bisha barakaysan ee Ramadaan walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga waxaad sameyseen dadaal fara badan ka waran tartankan sidaad u aragtaan bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku tartamayaan degmooyinka caasimadda Hargeysa بسم الله وهرين اللعبة محله مرلبات أكتر برنامج عادي دوحي سبلان بوها برنامج عن هراء ورقنين موهين ومدد لي يود وحيابه عن هراء ورق وتيبوها runtii dee garna laba nin kama wada qoslaysaa leedo kale midun ba qosli lahaade hadii maanta iyagu qoslayaan dee anaguna beri ma qosli doonaa hambal aan leenahay maanta iyaga insha Allah waxaan sugaynaa maxay ahayd inay isku aadka dambe iyo dee hadii nasiibkaygu nagu baaganaan dib ciyaarno insha Allah taasan dee insha Allah rajinayna ku soo baxno dhalinyarta kala duwan ku nool caasimadda Hargeysa ee tartankan u dhaxeeyo maxaad kula talin lahayd runtii barnaamij qiimo leh barnaamij oo fiiro dee xalaal weeyaan oo dee wax musuqmaasuqani ku jirin weeyaan qof walba ka qayb qaadan kara dee adigiyo lugtaadu weeyaan runtii wallahi aad ayaad u mahadsantihiin intaasi waxaynu ku soo gabagabaynaynaa tartankeennii bisha barakaysan ee Ramadaan ee qaraabsan lacag oo hel lacag qadarkeedu dhayahay 10 milyan oo shilinka Soomaaliland dhamaantayo waxaan leenahay hamogaanina Cow TV iyo waliba qaybihiisa kala duwan ee mareegaha internetka nagala xiriiraysiin sida Instagram-ka YouTube-ka Facebook-ka TikTok-ta iyo dhammaan social media-ka oo dhan waxaan leenahay fadlan subscribe noo saar follow noo dhaha ha ka ilaawuna like sidoo kale comment-ga ka ilaawuna u share garay asxaabtiina kale ee idinku jirta si ay u gaadho ama u gaadho barnaamijkeenan qaraabsa lacag ama tartankeenan qaraabsa lacag waxaan kaga tagnaa wareegyada xiga in aan ku kulmi doono insha Allah taala hanaga hadhina nala socda dhammaanba bahda Cow TV iyo labada degme oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo Cow TV weeye filimada kuwa ugu wanaagsan Cow TV kala soco sasalado kala nooca Cow TV kala soco xayis